wararka naga soo gaaraya deegaanka Awdiinle ee banaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxay sheegayeen in saacadihii la soo dhaafay halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Awdiinle halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. inta uu dagaalku socday ayaa la isku adeegsaday hub aad u culus. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab ay halkaas ku soo qaadeen isla markaana Al-Shabaab ay gaarsiiyeen jab aad u xooggan. saraakiishu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay ka qabsadeen hub fara badan. dhankooda dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaguna war ka soo saaray weerarkan ayaa waxay sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. markii laga soo tago sheegashada iyo guulaha ay kala sheeganayaan labada dhinac, ma jirto ilaa ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin kara khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray labada dhinac. deegaanada uu dagaalku maantay ka dhacay ayaa ah mid degan, waxaana halkaas ka socda howlgalla ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay ku baadigoobayaan haraadiga dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa iminka waxay wajahayaan mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa oo kaga imaanaya dawladda federaalka Soomaaliya, iyadoo dagaalkii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay degmada Awdiinle lagaga dilay dagaalamayaal fara badan.